seminaarkan oo ay ka faa'iideysanayeen 200 arday oo wax ka barata kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Somafel ayaa waxa uu la xiriiray barashada adeegga saadka ee hay'adaha xirfadaha gaadiidka iyo howlaha adeegga duulimaadka rayidka civil aviation-ka taasi oo ay iska kaashanayaan qabashada seminaarkan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo maamulka jaamacadda Somafel ayaa lagu qabtay xarunta wasaaradda gaadiidka duulista hawada munaasabad kooban oo lagu furiyay seminaarka ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda Somafel mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dawladda Soomaaliya ardayda ka faa'iideysanaysa seminaarka iyo marti sharaf kale waxaana diiradda lagu saaray muhiimadda seminaarkan uu leeyahay ardayda Soomaaliyeed agaasimaha waaxda qorsheynta iyo sharciyada ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Saalax Ismaaciil Sakhawe iyo agaasimaha waaxda shaqaalaha iyo tababarada ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa si wada jir ah uga hadlay ahamiyadda tababarkan uu leeyahay ardayda jaamacadda Somafel oo halkan ku timid inay ku soo bandhigaan aqoontooda fikirkooda iyo muxuu ahaa ardayda ay wax bareen wayna ku mahadsan yihiin runtii annaguna waa ku soo dhaweynaynaa marka nabigeena kaleey salaatu salaam wuxuu yiri utlub al-ilmi min al-mahd ila al-lahd hadi darabta illa laga dhinto ilmi ma laga daala waa la bartaa sidoo kale hal yastawi alladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun ilaahi subhanahu wa ta'ala ayada marka sideedaba qofka oo maaragtay wax bartay ma lumayo gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Somafel Professor Abdulqaadir Bashiir Maxamed ayaa ka hadlay qiimaha seminaarkan uu leeyahay ardayda waxaan rabaa marka inaan wax yar ka dhaho seminaarka maanta la qabanayo logistics especially transport and civil aviation logistics simply wax kala ma aha waa ina qaadaa shayga saxan ah qaadaa sida munaasabka ah hadii shay jabay waa inuu fragile ku qaado hadii shay la qaboojinayo asiyoo qabowsan macnaha sida saxan u qaadaa waqtiga saxan ah qaadaa u geysaa qofka saxan ee munaasabka ah geysaa alaabta sida laga rabay u tagtaa meesha waqtiga laga rabana ay tagtaa that simply waxa waaye inaad deliver gareyso from A to B logistics ina shay qaado meel ka qaado aad meel kala geyso wasaaraddan iyo shaqadeeda insha Allah waxay soo isgeli doontaa waxyaabaha la xiriira logistikada oo ay tahay inaad wax ka fahantaan sida anaga vision-keenu ahaa waxaan la shaqeynayaa wasaaradda kala duwan Muuse Ismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.